Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel guys. Kusoo dhawaada channelkayga waa walaashina xabo cooking oo idin leh. Soo dhawaada. Maanta waxaa inoo wadaa buskudka ciida insha Allah taala. We will make cookie biscuit Eid insha Allah. What we have here 2 cup melted butter, 2 cup sugar, 5 eggs, baking powder, vanilla sugar and 1 kilo plain flour. waxaa waaye subag la soo dhalaalay 2 koob iyo 2 koob sokor 5 xabo ukun iyo qaado baking powder ah iyo qaado vanilla ah iyo 1 kilo bur ah. intaas aan isku soo qasaynaa insha Allah. marka aan diyaarsano weelkeeni, we're gonna get ready for ukunti 5 eggs, sokorti koobka ugu horeeya, second one. Okay, intaana isku soo walaaqayna aan si fiican isugu soo dhalaalinayna insha Allah. si fiican ila socda. You need to mix very well all this stuff together. You can melt it together nicely. si fiican ina isugu walaaqno waaye. haddii kaleeto buskudka sokorta way ka soo baxaysaa ama waa la arkayaa insha Allah. marka si fiican u soo walaaqaya sidaas ila socda. saan u qas ilaa iyo cabaar. mix about 5 minutes 5 daqiiqo camal si fiican u qas. si fiican ha isugu dhalaalo. leave it melted together all sugar and egg insha Allah. si fiican inuu isugu dhalaalo. marka asxaabteedii isku soo dhalaalay halkaas wateriga noqday egg iyo sokorti waaye. okay, hadda waxaan ku daraynaa batarkii ama subagii aan soo dhalaalin. subaga haddaa haysanin blue band ay dhahan dadka qaarkiis. haddaa haysanin waxaa isticmaali kartaa subageena half iyo saliid subageena caadiga lo'da. if you don't have butter guys, you can use it for clarified by butter and mix for vegetable oil or frying oil, whatever you have in your household. markaasaan isugu soo walaaqayna insha Allah. oilkeedana waxaa isku qasaynaa batarkii iyo ukuntii iyo subagii. masha Allah. okay, hadda waxaan ku darayaa burkii plain flour kana ku daraa 1 kilo. 1 kilo ku daraa insha Allah. dan gacanteyda isticmaalaya. I'm going to use my hand. okay, burkii waan ku shubay. waxaan ku darayaa 1 qaado baking powder ah iyo 1 qaado oo vanilla ah. 1 spoon baking powder, 1 spoon vanilla sugar. okay, let's mix. I'm going to use my hand guys inshallah. okay, asxaabteedii waxaan rabaa inaan inshallah aan isku qaso si aad ii aragtaan. marka buskudkii burkii aan kusoo shubay kiiladii. markaan mixing by my hand inshallah. marka strong inuu noqdo ma la rabo, inuu noqdo dry ma la rabo. marka asxaabi qiyaasta hadday kuu toosto buskudkaagana waa toosaya insha Allah. qiyaastaan ma aragtay. if you have a best measurement, it's gonna be your cookie best. inshallah this cookie is very easy, mashallah, and yummy. It's really fun to make it, mashallah. okay ahbaabi, marka waa kan burkii diyaar waaye. saan uu noqday mashallah. mujeedin very soft waaye, strong ma hard maaha mashallah. saas waaye. okay, mashiinkan aan kusoo shubayaa. mashiinkan aan haystaa ila socda insha Allah. aan ugu shubayaa. markaas howlkaas uu leeyahay gadaalaa laga jiidayaa. wuxuu noo sameynaa decoration oo buskudka ah. si aan wixii buskudku ma baahna in la khamiiriyo guys.
This, you know, the dough doesn't need to raise. When you mix straight away, you need to make the biscuit. Okay guys, waxaan haystaa decorationadan aan soo gelinayaa waan wataa marka intaan any decoration soo isticmaal hadda waxaan geliyay ka oo wadna love heart geliyay insha Allah saan u saaraya ina arkaysaan insha Allah sida u saaraya I'm gonna press like this saas kale to qanay la xogaa duu iga rab balaartay haduu balaarto ku celi if it's become very big again do it. And again it's because yeah, this is I need to change this number because big Y. Okay, saan intaan ku bilaabayna. tartiib u baan xoog inuu riix hada xoog u riixid big oo noqona. If you press hard it's become very big. Just press it slow. Sometimes it fail and put it back again. Inshallah سانا kusoo baxaya. Sorry guys about that noise. I'm gonna bake about 8 minutes. It doesn't need to bake so much hard. waxaan soo dubayaa 8 daqiiqo bas ma u baahan inaad zaid u gaduudisid waxa la wax yar oo dahabi ah inaad kaga soo saartid insha Allah saas ila socda. Okay, hadda design kan bedelayna. We will change the design from love heart to this insha Allah. Bismillah, we start about this design kan ku bilaabayna. zaid u riixin saar ka qaad le bisaar just press slowly, no hard. duu soo bixinin ku celi ama uu ka balaarta hadan cajiinka kuskus meesha ku celi duu hadan mid kale soo qaado. ما شاء الله تبارك الله. So beautiful and very easy. It takes me mixing and you know the preparing takes me about like 15 minutes. It's very easy guys. ما شاء الله. ما شاء الله الديزاين كان ساسو صبحي كذا سانا كدقني إن شاء الله وأنا سودوي دون. Okay, صحن كيس دحات كنا كسر دقايق. This pattern, the tart plate إن شاء الله tart design. Okay, الحمد لله بينا هذا إن شاء الله. هذا هو هلاوي. I'm gonna mix again. قبل ما ندو صار هلاوي. هذا كان كريت. كوسكوس كقاد ماشي. صحن كي سدحات. اوكي ديزاين كي سدحات وكنا سانا كسودية. The third one I make this pattern ما شاء الله so beautiful. أكله أحبابي سانا كسوبح بسكوت كي ما شاء الله تبارك الله لقم الشيكين كرا all different patterns ما شاء الله. هذا كاشين please subscribe. هذا نقول سبتاي سودو إن شاء الله. وأنكم هسنتين بليس أصحابتين وشير قراية إن شاء الله سيقوا فايديستان إن شاء الله. وأنا محدثنتين داود شدينا. Thank you for watching guys. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيد مبارك كل عام وانتم بخير إن شاء الله. كوين نبدي عافماتكم عيد إله نقدر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.